Soomaaliya oo dawlad samaysanaysa jirta aan ka jeednay insha Allah ta'ala inay dawlad wanaagsan oo dadkooda wax u tarta inagana aan si fiican oo walaalnimo u kala baxno sidii Itoobiya iyo Eritrea inuu Ilaahay ka dhaliyaan jecelnay subhanahu wa ta'ala intaas oo arrimood walaalayaal maanta inta waxaan joogay wiigaan joogay waxa yimi lix xaasba yimi oo caruurtu ka tahriibtay afar waxay yiraahdeen mangafa naga haysta oo habla ku jira in caawi labana qolo waxay ku soo qabatay Boosaaso qolna waxay ku soo qabatay Garoowe iyagoo sii socda hablaheeni baa saa isku turaya mid kale ninba Mareykanka la soo hadlay wixii caruurteedii baan Boosaas ka soo celiyay iigu doon jaamacada dibadaha waxaan maxaa waalaya adna Mareykanka ma joogto caruurta way haystaane wuxuu yidhi waxay igu yiraahdeen caruurtan iskuulka ka soo wada qornay ayaa wasiirkoodii shaqo siiyay anagana shaqana sii waayo meesha cadaaladnimo taalo waan isleebdinaa bay dhahay waxaynu haysano haddaynu si cadaalad u qayminino caruurteenu may tahriibteen cadaalad darro iyo ayaa dalkii ka jira la leeyahay in la joojiyaa way walaalahay waxa way dalkan dawladdi dadka ma shaqaysan karto dadka wuxuu u baahan yahay in la maal gashado Jabuuti waa aragteen intaanu Ismaaciil Umar geela iman kirada iskama bixin jireen nalka korontaydan karanka iska bixin jireen koranka mushaharka ma heli jirin maanta waxa la ilaaha adduunka oo dhan wuxuu doonayaa meel yar inuu ka helo Jabuuti adduunka oo dhan baa isku yimi inaga maalintii DB weer Ilaahay noo keenay waad ogaato waxa qabiil baa lagu dhawaaqo waxa reer hebel la soo maslaxo khayraadka dalka iyo dhulka lama kala laha dawladda ka mas'uula maalintii 390 aan halkan yimi ee dhalinyarada ciidagale la yiri ka saara airportka hadhiibeen war ana la ii diray odayaasha ay la soo hadal waan u tagay waxayna waan dhiibinaaye horta dekada berberaha la dhiibay Ilaahay waxayna tan waa caasimadii iyada soo horeyso horta iyada dhiibay ku yiri maalintii dhawatay DBB ay ka hadleen reer Boorame reer Berbera ayaa ii yeedheen oo feesoo maalintii maana ka saxsaneen waxay in maalin la wada wareegaheed bay Ilaahay oo la qarameeyo way aqliyeysteen maalintii dhawatay airportka la korinayay 200 oo reer oo ciidagala ah oo intaas sanad deganaa ayaa laga qixiyay oo laga kiciyay oon hadal la way arkeen faa'iidada ay leedahay marka meesha la hormariya hadda waxa nasiib daraa garoonkeena uu isticmaali jiray Maxamed Siyaad Bare uu marna ka iibsan jiray magaalada Ruushka marna ka kir jiray Mareykanka ee intaas oo milyan uu ka heli jiray ayaa adduunka maanta u soo jeestay security-ga nabadgelyada aagaan degan awadeed imaaraadka waa soo dalbaday imaaraadka hadduu inoo yimaadaan Itoobiya imaaraadku way is ogol yihiin way wada socdaan Itoobiya diidisa Itoobiya ma dalkan xukuumay Itoobiya ma xukunto waa dalkeedii faa'iido ma inoo leeyahay inaynu helo inaynu isticmaasho airportkeenaas oo imaaraadka oo carabta ah oo maanta intii yarada DB qaadanay baasaboorkeena way nagu dhuftaan macaawidayna siiyaan way inoo dhisayaan wadadii Xasan Sheekh inoo diiday ka qabtay World Bank waxay inoo dhisay Emirates-ka inoo dhisina maanta airportkeena haddaynu isna ku diirano ciidamadeena inoo tababari doonaan kuwa badda inoo tababari doonaan shaqaynu ka heli doonaan waxay noqon doontaa wadan in ilaaliyo ibreelano heshiis military waxaan nasiib daraad in marka arrimaha caynkaas laga hadlayo rag wasiir ah oo dawladii ku jira ay reerkooda la soo saftaan oo reerka ka saxi lahaayeen oo sidaan aabahay u saxi lahaayeen ay la barooranayaan oday jaahil ah oo qaad meesha ka cunan faa'iido leeyahay wax aan garaneyn intaynu sidaan nahay intaanaynu garaneyn biyuu faa'iido u leeyahay marka banka la xidho intaynu garaneyn degmada marka la siiyo balimataan inay ciidagaliye isxaaq faa'iido u tahay ay isku diliyaan dawladii naga dheer iyo ixtiraaf naga dheer reere waxaynu nahay gaar iska haya
هذا هو حنودي شيء هذا مقبته إن شاء الله تعالى إن أنا عدل شيء تاجرين عدل كلا ودليل هاي أنا كين كوا إسكا أو تدور تورن كبابين دون إن شاء الله تعالى أو عاقل دمبيا ندمو قاطعوني أنا تأيه شبيني إن أنشيل كم جيرا كل نقول دون إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى إن الشرعي استعمال دونه أون الدولة لقوم ديسم مصلحات لقوم ديسية بعض لقوم ديس الله بحيوه شرعية كلا دمبين بالقول ديسا واحد لقول عياره هو مستقبل كينه مستقبل شغله للميسان أو دولة دينه هذا أوبا تصنع كي كون واحد بدن ما قولي كرتو كون كقولن لأنه ما ملكيه الحيتان ما بجارسنا بدن ما جارسنا ما ملكيه جارسين دونا دد كينه وهشيسين دونا شرف بينه يلان دونا لكن وحلايه هوديلنا أفتح هوديله على وكل شروع هلاقي صوب حوم مدة هلا طريان لنا ما أنت أرنتنا أبارتنا ولا هذا وين نوصل إن شاء الله تعالى أنا يقول حسنا ما نقول موسنا العاقي موسين شرين إلهي سبحانه وتعالى يعني وكحنا لأبا وحنا لكن دنتنا كشغين يا حتى لو حن شغلنا وحوى ناكسن ونسوى أقول هاي ونعدنا عدنا كحمينين أنا كسر صار الدوم مركب على واحد وقاتان ما أنت واحد ما ده إنك كدبت ما أنت وإنك حماته دي بسوق عمينه وعليه جورت ده كقريب كشو وحي أنا كنا نسكر عنه إن نقول أقلاته بدحوينها ونوتجنا إن شاء الله تعالى وحي أنا نسكر عنه صدق هذا حسبه وحلينا هاي نقول أقلاته أنا لبدني الله اللي كنا وحليها هاي قلت كيس أحمد سيري أنا كنت ندور كده موسى وحي لبس سنة دقيقة جورد إيجا ويت هاي يقول صوت وفيل عليه إن شاء الله تعالى وما سنتي هذه ما سنتي السلام عليكم